السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا دمان أصحابتا كحرن channel كفايدة ميديا ميل كستا أدافها الدنيا كيغا سوغنتين فضلا هدي channel كعصب تاهي subscribe like and share إن شاء الله تعالى سياد كاسان عوان كاما سبتيتل كمانتا موضوعين وحوي تاريخ نولد كي أما قصوي تاريخ نولد كأها إنو السعودية أنصوب بلونه أيام وحنو كشنا كيدونا مانتا مدحوينها دالكا تركيا رجب طيب أردوغان تاريخ نولد كيسي رجب طيب أردوغان تاريخ نولد كيسي هدان بلونه رجب طيب أردوغان لرشهان وحكسو جيدا مقالة رايزا وعاصمة قبل كرايزا إبارية تركيا كتالا waxaa ku dhashay xaafada Kazimbaasa ee magaalada Istanbul 26 Febraayo sanadkii 1954 waxa carruurnimadiisa ku soo qaatay magaalada Riza halkaas uu aabihiis kamid ahaa shaqaalada ilaalada xeebaha 13 jirkiisii ay qoyskiisa dib ugu soo laabtay magaalada Istanbul maadaama uu ka soo jeeday qoys sabool ah waxa uu Rajab Tayyip Erdogan bilaabay inuu sharaabka liinta iyo siinta ku iibin jiray wadooyinka magaalada Istanbul waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe ku soo qaatay dugsiga Kazimbaasa Biyala Primary School sanadkii 1965 wuxuuna dugsiga sare kaga qalin jabiyay dugsiga sare Imam Hatib School 1973 Rajab Tayyip Erdogan wuxuu shahaadooyin ka helay koorsooyin waxbarasho oo kale wuxuuna dibloom ka qaatay dugsiga sare AU sanadkii 1981 ayuu ka qalin jabiyay kulliyadda dhaqaalaha iyo cilmiga maamulka ee jaamacadda Marmara University oo ku taala magaalada Istanbul waxa uu xubin ka noqday ururka ardayda Turkiga National Turkish Student Association Rajab Tayyip Erdogan oo muddo 15 sano ah kasoo dhex jiray siyaasadda waxa xil ra'iisul wasaarenimo ka hayay muddadii u dhaxaysay sanadkii 2003 ilaa 2014 wuxuu mar soo noqday duqa magaalada Istanbul sanadkii 1994 ilaa 1998 Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sanadkii 2001 aasaasay xisbiga cadaaladda iyo horumarinta AK Party wuxuuna xisbigaas u horseeday guusha xisbigaas ay ka gaareen doorashooyin ka dhacay dalkaasi 2002 2007 iyo 2011 madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan inta uusan siyaasadda soo dhexgelin wuxuu ahaa ciyaartoy ka tirsan naadiga kubadda cagta ee Kazimbaasa Sports Club oo la aasaasay sanadkii 1921 kana mid ahayd kooxaha heerka koowaad ee Turkiga naadiga Erdogan ka tirsan waxay ka dhisan tahay xaafadda Biyaglu ee magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas Istanbul Rajab Tayyip Erdogan wuxuu masraxa siyaasadda ka soo muuqday markii isaga iyo Abdullah Gül aasaaseen xisbiga Islaamiga ee AK Party sanadkii 2001 xisbiga AK Party wuxuu ku guuleystay doorashadii dhacday sanadkii 2002 iyadoo Abdullah Gül ku guuleystay xilka ra'iisul wasaaraha wuxuuna markii dambe noqday madaxweynaha Turkiga talaabadaas waxay u gol xaartay inuu Rajab Tayyip Erdogan qabto xilka ra'iisul wasaaraha bishii Maarso sanadkii 2003 ilaa 2014 Erdogan waxa isla sanadkaasi loo doortay madaxweynaha Turkiga wuxuuna mar labaad xilkaas ku guuleystay doorashadii dhacday 2018 Juun waxa uu bishii July 15 sanadkii 2016 ka badbaaday afkambi dhicisoobay oo ay sarkaalin ka tirsan ciidamada xoogga dalka Turkiga ay doonayeen inay xilka ka tuuraan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan balse shacabka Turkiga ayaa si xoogan u difaacay madaxweyne Erdogan isku dayga afkambigaas waxa lagu dilay in ka badan 300 oo qof iyadoo in ka badan 2100 kana lagu dhaawacay dhismooyin dawladeed la burburiyay waxaana hawada laga soo duqeeyay qasriga madaxtooyada dhismayaasha baarlamaanka waxa afkambigii kadib la xiray ugu yaraan 40,000 oo qof ay ku jiraan ugu yaraan 10,000 oo askari 15 shaqaale caafimaad 2,745 garsooryaal maxkamadeed iyadoo 1,600 shaqaale shaqada laga ceyriyay 160,000
oo shaqaalaha shaqada laga ceyriyey. Dowladda Turkiga waxay shirqoolkaas ku eedeysay shiikh la dhaho Fatxullaahi Guuleed oo masaafiris ku ah dalka Mareykanka, balse Guuleed wuxuu beeniyey inuu ku lug lahaa afgembigaas. Dowladda Turkiga waxay bilowday howlgal ilaa socday waqtigaas oo laga soo horjeeday aragtida shabakadda Fatxullaahi Guuleed oo si aad uga dhex milatay militariga dalkaas. Madaxweyne Erdogan waxa uu mar kale ku guuleystay 2018 doorashadii madaxtinimo, wuxuuna xilkaas sii hayn doonaa 5 sano ee soo socota. Doorashadan waxa ay kaga duwaneyd doorashadii hore, waayo doorashadan waa markii ugu horeysay ee lagu doortay madaxweyne fulineed awood leh, waxayna Turkiga ka guureen nidaamkii hore ee ra'iisul wasaaruhu ka mas'uulka ahaa fulinta dowladda. Madaxweyne Erdogan waa xaasle aabbo waa 4 carruur ah, 2 wiil iyo 2 gabdhood, wuxuuna awoowo u yahay ilmaha ay ubadkiisu dhaleen. Allah u naxariistay aabihiis Axmed Erdogan waxa uu geeriyooday sanadkii 1988 halka ay hooyadiis Tanzila Erdogan ku geeriyootay da'da 88 sanadkii 2011. Taariikh nololeedkii halgamaagii weynaa ee muslimiinta ee sumcadda ku lahaa shacabka muslimiinta Rajab Tayyip Erdogan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Insha Allah waxaanu ka hadli doonaa qisooyinka taariikhda dadka saameynta ku leh caalamul islaam iyo wadamada adduunka kaleba si aan uga qaadano casharo. Marka insha Allah intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.